haddii wadnahayga la jeexo oo qayb laga jaro jirkayga jabkiisoo hadha xabiibi jacaylkaagu xusayahaye ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa Kacab Media u xaqiijiyay in khilaaf xooggan kii ugu darnaa oo soo kala dhaxgalay fanaanka Maxamed Aalta iyo sidoo kale King Jaamac Maxamed Aalta iyo King Jaamac dhawaan waxay soo qaadeen hees si weyn bulshada Soomaaliyeed ay ugu heleen waxaana soo baxay warar sheegaya in fanaanka Maxamed Aalta iyo sidoo kale King Jaamac arooskooda dhawaan uu ka dhacayo dalka Sweden waxaan leeyahay lamaan waxa ay noqon doonaan laba lamaane oo isku guursada dalka Sweden hadaba warar lagu kalsoon yahay oo aan helnay iyo sidoo kale ila xogaala oo aan wareysanay waxa inoo xaqiijiyeen in khilaaf uu soo kala dhaxgalay fanaanka Maxamed Aalta iyo sidoo kale King Jaamac khilaafka ayaa ka dambeeyay kadib markii fanaanka Maxamed Aalta uu ka hinaasay fanaanka Safwan Holac oo la sheegay in tiro dhowr jeer xiliyadii habeenkii uu soo waco King Jaamac taas ayaa waxa leeyahay waxa keenay khilaafka u dhaxeeya King Jaamac iyo sidoo kale Maxamed Aalta waxaana gabi ahaan burburay arooskii la qorsheynayay inuu ka dhaco dalka Sweden oo ay isku guursadaan Maxamed Aalta iyo sidoo kale King Jaamac Maxamed Aalta waxa uu horey u soo furay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyadoona Maxamed Aalta iyo sidoo kale fanaanka King Jaamac waa fanaanada King Jaamac xiriir ka dhaxeeya ay dhawaan ay ka hinaastay Hodan Cabdiraxmaan oo horey ay u kala tageen fanaanka Maxamed Aalta hadaba la soco wixii wararkan xasaasiga ku soo kordha shabakada Kacab Media kula jira oo kale haddaadii la joogin darta waan jiranayaa intaan jehel عاشق قلبي كل جرى وكاله